buufsinayo. So is a win-win. So idin tusaya at the end of the video sidoo bahalka ugu soo baxay. Masha Allah, qurux kala arag, alxamdulillah. Aniga waan jeclaaday, waan ka helay shaqadan soo shaqeeyay qasaar kuma dhicin. So insha Allah waqtiga haysatid adiga sameyso. Aniga hadda hal maalin ma soo wada sameynin, laba maalin ayuu qaatay. maxaa la dhihi jiray laakiinse adiga waqtiga arabtid ku sameyso. ruux ku buufsinaya ma lahan, alaabtaada soo gada, wixii guriga ku yaala isticmaal, waxa kalena soo gad. bahalahan hadda aan isku dardaro adiga $5 $7 ma dhaafaysa hadday kor u kacdo. laakiin waqti ayay ka qaadanaysaa, waqti ayaa gelinaysaa. bahashan kaligeeda waxa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وشرفت الله كو قيمها قايالا دمانتين وايدين ودا سلامية سلام كبعدي وهنيدين ليهاي كسو دوادا حاولول DIYs. magacayga waxa la yiraahdaa xawluul. axad walbana waxa idin soo saaraa waxyaalo qurux badan oo gacmahayga aan ku sameysto. aan idin la jeclaaday inaan idinkana idin la qaybsado si inagana u sameystaan gurigiina ugu sharxataan. videoga maanta wuxuu ku xisaabsan yahay wax yar aan sameeyay oo qurux badan gurigayga aan sameeyay. so insha Allah waxaan jeclanahay inaan ka heshaan daawasho wacan ayaan idin leeyahay. maanta alaabtaan wada isticmaalayo waa bira caadi ah oo manqasna hata ku jira karsid bira adag u ahaan. bira fudfududna ma ahan, waa dhexdhexaad caadi ah maasha Allah ah. waxaan kaloo isticmaalayaa muraayooyin frame ah aan kasoo gaday Dollar Tree-ga, xabadiiba $1 ayay joogday. kuwaasna waan isticmaalayaa. waxaan kaloo isticmaalayaa glugan waa ogtihiin mar walba DIY walba ay la socotaa. manqasna waa u baahan tahay insha Allah tacaala. hadhowna waxaan idin tusayaa waxyaalaha kale hore aan soo isticmaalay insha Allah tacaala. waxaan sameynayaa frame-ka ayaan ka bixinayaa muraayada uma baahni, hadda DIY-gan uguma baahni, sida daraadeed waan ka saarayaa. laakiin kartoonka kor ka saaran muraayada waa u baahan tahay mar walbo because hadhow gadaal ayaan ka isticmaalaynaa insha Allah. meel gees dhigo. hadda marka hore waxaan rabay fikradayda ay ahayd inaan laba aan isku dhajiyo si ay DIY-gu u ii dheeraado, laakiin way ii shaqayn weysay. so insha Allah tacaala dhow waan arkaysaan waan kala bixinayaa si oo maxaa la dhihi jiray ay igu noqoto 2 xabo oo yaryar. laakiin hadda adiga rabtid bahal dheer waa isticmaali kartaa labadaba isku dhaji. waxaan isticmaalay E6000 glue gan aan soo gatay maanta kama helin. sababta ugu helin waxaa waayay maxaa la dhihi jiray E6000 oo black aan soo gatay. usually clear kan oo cadaankaan soo qaataa, laakiin kan kalarka iskama fiirinin, waan harkaysanaa waan iska soo qaatay. markaa cid imaaday waxay ila noqotay tii black ahayd. haddaa u rabin kalarka inay black ka noqoto tu cadaan soo qaado, iska fiiri kalarka insha Allah tacaala inta u soo qaadin ka hore. hadda maxaa la dhihi jiray waxaan kaloo sameynayaa waxaan ku cabirayaa frame-kii birihii aniga aan rabay inaan ku isticmaalo. birahan rabay inaan ku isticmaalo ayaan frame-ka ku cabirayaa. waana jarjarayaa si ay frame-ka ii deeqdo. kuwa weyn iyo kuwa yaryar labadaba kuwa weyn way iga dhamaadeen, horaan baa u isticmaalayay. ribbon waayay marka horaan DIY horaan ku isticmaalay. videoyahayga haddaa ku noqotid waad arkaysaa insha Allah tacaala. wixii iga soo horay ayaan isticmaalayaa birihii frame-kan ku cabirayaa. markaan ku cabiro waan jarjarayaa, qiyaas ahaan ayaan u jarayaa. waxaan kaloo isticmaalayo waa biriqbiriqii ribbonkii biriqbiriq ahaa asaga naftirkiisa waan isticmaalayaa. biraha markaan isku dhajinayo kaligooda haddaan isku dhajiyo maxaa la dhihi jiray si fiican iskuma qabsanayaan, way qabsanayaan laakiin sidaan ka rabay kuma soo baxayaan. soo sidaa daraadeed waxaan isticmaalayaa biriqbiriqan mara ahaan waayay. mara ahaanta labada bir ayay isku dhajinaysaa, mise hadii kale nashqada sidaan ka rabay igaga halaynin ayay igu soo saaraysaa. sidaa daraadeed iyagana birahan ku cabiraya. biraha ku cabiro birihii qiyaastooda ayaan usoo jarjarayaa. iyaga naftirkooda waa DIY hadda ka hore aan sameynayay ayay iga soo hareen. haddaa rabtid kuwa dhuuban Dollar Tree-ga laga helaa $1 unbay joogaan. tan bilaaranna waxaan kasoo gaday
Hobby Lobby. So Hobby Lobby hada aadid tan weyn ayay halaysaa aad kasoo gadan kartaa. Mar walba waa idin sheegay Hobby Lobby discount 50% ay hoos usoo jibinayaan qiyaasta marka hore lacagtay meesha kusoo qorteen mooyaane 50% ayay ka jarayaan. Birahan waxa waaye iyagana inta badan $5 $6 waaye laakiinse 50% off so $2 iyo jajaba kusoo helaysaa. So iyagana soo fiir insha Allah taala. Hadda waxaan soo qaadanayaa glue baa isticmaalaya marka hore waxaan rabay E6000 ka inaan isticmaalo laakiinse bahashan waa frame aan darbiga ku dhajisanayo uma baahni inaan soo qaado misadii kale aan isticmaalo. Birahan isticmaalayna way adag yihiin marana dhaxdooda waa marinaya oo biraq ku dhagan so ma soo fuqayaan. So you don't need 6000 marabtid. So waxaan sameeyay hadda birihii iyo marihii dhaxda kasoo galay birihii framekii zaid u dheeraaday. Waxaan rabay labada dhinac TV-ga inaan laba xabo u kala sameeyo. Labada dhinac TV-ga hadhow insha Allah waa arki doontaan. Mar walba qiyaasa waxaada waa idin sheegaa DIY walba aad sameysanaysid inta DIY ku dhameynin qaado ku qiyaaso meesha rabtay inaad ku surtid ku qiyaaso waxa hadda u jecleen oo sida rabtay ka soo bixi waayaan ka bedel ka samee hagaaji waqti gali insha Allah taala. waqti zaid u dheer kaaga ma galaayo laakiin waqti gali. So markaan ku soo cabiray aniga zaid bay kaaga dheeraatay markay kaaga dheeraatay waxaan dhahay xawluulay frame-kan zaid buu u dheeraaday dhaxda ka jar labada dhinac saas bay qurux igu soo baxday. Aniga dooqayga saasan ka helay adiga dooqaaga ma garanayo. So dooqaada adaa garanaysaa soo dooqaada ka shaqaysii. Aniga 6000 ka hal mar hadaa wax ku dhajisid frame-yaha noocaas oo isticmaashid way adag tahay sida u kala fujisid. So sida daraadeeda at the same time isla markiina ma rabin waxa inay ga qasaaraan wax qasaari aan ka dhigo. Waxaan rabay inaan laba shay aan ka dhigo laba xaba ay noqdaan. Sida daraadeeda waan kala fujiyay oo aniga way kala jabtay laakiin zaid igama kala jabin in yar ugu براوي inaan fujiyo wax yar bay meel yar ka jabtay meeshaas yar ay ka jabtana nashqadaha raba inaan ku daro baan ku korsaaya waan ku sii qurxinaya. So dib weyn ilama ahan waxaan kaloo isticmaalay gluugan isticmaalay birihii markii maradii iyo birihii aan isku soo dhajiyay hal ii noqdeen dhaxdana aan ka jaray aan ku qiyaastay labada dhinac frame-ka labadiisa dhinac ayaan ku dhajinayaa. Markaan ku dhajiyo ka bacdi waxay ii noqonaysaa bahal koowin korna koowin ka ah hoosna square ka ah oo afar gees ka ah dhaxdiisa wax walba aan gelin karo. Light baan geliyay aniga hadda light kan geliyay asaga naftirkiisa $3 ayaan ka soo gaday waa lightka Christmaski waxaas ay ugu targalaan inay ku sharxadaan wax kale aan u helay bahashan rabay inaan ku quraxsado. Markaan baraaweeyana lightka aniga kama helin sababtay tahay waxa waayay dhaqso dhimanaya waa wax $1 lagu soo gaday waa ogtahay haday waxa zaid u jaban yihiin frame-yahan amal u ahayn oo wax lightkaas amal kamid ah oo lacagtiisa jaban hadaad aragtid mar walba waqtigiisa gaaban. So insha Allah haduu ilaahay ka raali noqdo mar kale lightka waan ka bedelayaa. Lightkan weelmad ka soo gadanaya kuwa yar oo birbirqaayo. Frame-kan muraayada waxaa ka hooseysay kartoon gaxawi bibiya ah ayuu ahaa kalarkiisa midabka kama helin sida daraadeeda waxaan damcay inaan iska bedelo. wax kale ma haysin waxaan haystay wallpaper-ka hadda ka hor aan isticmaalay videoga aan ku isticmaalayay ayaa cidii taalay ma rabin inaan isku mashquuliyo aan wax weyn aan sameeyo. So kaasaan soo qaatay frame-kii ayaan ku dhajiyay si frame-ka dhexdiisa ay ugu noqoto wax cad because gurigayga wax brown ah kuma jiro dhan brown wax qaanadaha jikooyinka ugu ahayn barxadeyda brown kuma jiro. So ma rabin inaan isku dhex qaso brown-kana brown-kan raba ma ahan haduu brown zaid mugdi aan lahaa waan isticmaali lahaa bacdan cad hada ku dhajisid isbedel weyn waa idin tusaya labadaba waa arkaysaan hindina ku arkaysaan kan brown-ka ah gaxawigi ah iyo kan kale isku mid ma ahan isbedel weyn ayaa dhexdooda ka muuqda. So DIY-ga ma ahan wax aniga straight aan soo sameeyay haday wax iga qaldamaan haday wax iga saxmaan kulli waa idin soo gelinaya si inagana ugu faa'iidaan hadow u sameynin qaladkayga dhacay. So fahmin waxaan rajaynayaa inaad zaid wax ugu faa'iidaan. So frame-kii markaan bacdi aan ku dhajiyay ma sha Allah
waxaan ku celiyay framekii caadi aan ku celiyay boxkii muraayadii laakiinse kuma celinin midoogaada muraayada mar kale wax kale DIY kale u isticmaalayaa hadda waxaan rabaa un framekan igu surmo inaan u sameeyo so framekii boxkii framekii aan ku celiyay markaas un baan ku dhajiyay birihii iyo wixii kale nashqadihii kale aan isku soo dhajiyay markaas ka bacdi ayaan ku dhajinayaa hard glue baan isticmaalayaa hard glue aan ku dhajinayaa nalka yarna waxaan ku isticmaalayaa dhexda ugu dhajinayaa si labada dhinac ugu soo baxa waan sheegay waa idin sheegay hore aan idinku sheegay nalkan zaaid uma jeclaanin sababtoo tahay waxaa waay dhaqso iga dhintay baterihiisa zaaid bay u dhacaan meel laga daminayo laga shidayo kori way jirtaa laakiin markaas saa ugu dhajisid camal dhib waay sida u damisid so kuwa yaryar oo $2 ah ayaan soo raasanayaa aan geesaha meel walba kaga dhajin karo oo marna aan daman karna marna aan shidan karo xiligaan raban aan dansan karo xiligaan raban aan shidan karo ayaan soo sameynayaa haddaad rabtaan inaan wax kale saan camala frameyaha guriga rabtaan inaad ku qurxisataan iisoo sheega insha Allah waa idiin soo sameynayaa hoosna waxaan ka sameeyay biraqbiriqi iga soo haray baan hoosna kaga dhajiyay frameka meesha midow oo banaanka soo taalay baan ku dhajiyay wax weyn ma aha sida rabta u qurxso hadaa rabta waxay ku dhajiso hadaa rabtid maxaa la jiray wax kale oo naqshad yar oo adiga meesha ku galayo laakiin quraxda soo muujinayo ku dhajiso insha Allah taala gadaal frameka waxaan kaga isticmaalay command strips yeah so command strips ayaan gadaal kaga isticmaalay aan kaga dhajiyay si darbiga ugu dhago oo igaga soo fuqin igaga soo daadanin darbigana damage aan gaarsiinin sida inii sheegay kiraan ku jira so darbigayga damage ma gaarsin kari mise ana iga jaran tahay insha Allah hadhow gadaal ana iga jarayaan sida daraadeeda command strip kan darbigana waa ku dhajisan kartaa hadhowna darbiga wuu ku haynayaa meesha rabta ayaa ku dhajinaysaa maxaa la jiray darbigana damage kaama gaarsinayo so is a win-win so waa idin tusayaa at the end of the video siduu bahalka ugu soo baxay maasha Allah qurux kala arag alxamdulillah aniga waan jeclaaday waan ka helay shaqadan soo shaqeeyay qasaar kuma dhicin so insha Allah waqtiga haysatid adiga sameyso aniga hadda hal maalin ma soo wada sameynin 2 maalin ayuu qaatay maxaa la jiray laakiinse adiga waqtiga rabtid ku sameyso ruux ku bubsinayo ma lahan alaabtaada soo gada wixii guriga ku yaal isticmaal waxa kalena soo gad bahalahan hadda aan isku dardaro adiga $5 $7 ma dhaafaysa hadii kor u kacdo laakiin waqti ayay ka qaadanaysaa waqti ayaa gelinaysaa bahashan kaligeeda waxaa laga yaabaa iyadii heerka xaba ah intaas suuqa tagdid intaas oo lacagteeda zaaid kor u tahay laakiinse adiga marka adiga sameysatid gacmaha u sameysatid wax yar oo qurux badan ayay ku soo baxaysaa so waxaan idin leeyahay baraaweya hadaa baraaweysaan qurux idin ku soo baxdo maasha Allah ay noqoto isoo sheega ila soo xiriiriya insha Allah taala YouTube-ka meesha waan ku cusbahay videogu aan idin soo saaray maanta wuu cusub yahay maxaa la dhihi jiray anigana meesha waan ku cusbahay soo fadlan subscribe ii saara like ii saara comment hoos mar walba waxaan jeclahay ra'yigiina inaan arko soo iisoo comment gareeya haddaad waxyaalo fara badan insha Allah taala mar dhow waxaan jeclaan lahaa inaan soo sameeyo intro hadda waxyaalo videoyahayga wax yar way yara bateen design-yahan sameeyana way yara bateen soo sawira idinka soo qaadaya maxaa la dhihi jiray waa idiin soo gelinayaa gabdhaha wiilashayga cusuban dhammaantiina waa idiin soo dhaweynayaa soo dhawaada idiin leeyahay xawilul DIYs ayaa iga fiirsanaysaa waxyaalo yaryaroo budget ah raqiis ah guriga ku sharxanaysid ayaa mar walba waa idiin soo geliyaa mise hadii kale waxa ka faa'iidaysid ayaa idiin soo geliyaa Arbaca iyo Axad ayaan soo kala galiyaa videoyahayga Arbaca waa idin sheegay waxyaalaha faa'iido ah aniga aan u maleynaa inay faa'iido tahay ayaa idin soo geliyaa ay idin la soo share gareeyaa Axadna DIY ayay qaas u tahay DIY baan soo sameeyaa so insha Allah asxaabta hadal ay idinku badinin already dhagihiin waa idin buuxiyay waxaan idin leeyahay channelka subscribe soo saar like soo saar insha Allah taala ra'yigiina isoo sheega zaaid ayaan idinku mahad celinayaa hadaa video si share gareeya share ay si saartid insha Allah taala si walaalaha kalena ay u sii gaarto ay ugu sii faa'iideystaan insha Allah taala waxaan idin leeyahay khayr barwaaqa idin rajaynayaa waa inoo videogeena kale bye bye